السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا وضياق دلهانتين بمeel kasto muuqaalka iyo maqalka codkayga idiga soo gaarayo waxa la soo gaaray hadaan hawada idin soo marin jirnay barnaamijkeena toddobaadlaha ah ee hal-abuurka. dabcan barnaamijka waxa idin socodsiisaa aniga Nishaad Cabdi Dhamaan Nishaad Bariti. haddaba waayo martida toddobaadkan ee barnaamijka hal-abuurku yaa kala hee abwaan Mustafa Xalid Ismaaciil Cabdisame. abwaan ku soo dhaw telefishinka Quraan marka lagu soo dhawo barnaamijka hal-abuurka. wadhawahay walaasha Nishaad. واتهاي كل دتكم بدون حسودين يعني مقعد هذا مقلة مصطفى هالكوكو دشي هالكوكو برباري وحكو برتي هذا حكوكو سويها ولا شيء مصطفى وحكو دشي إثيوبيا كو برباري قبل كتقدر كوسوغان هذا هرجيسة واتهاي أول واحد ناشرتين إثيوبيا كودلتي كوسو بربارتي تقدر هذا كوسوغان هرجيسة أنت هذا مكان ما نتعرف مرات كاني وحنيسك بدي قلنا برنامج كذي ما سيد كوبات أي كوف فرنا برنامج كذا وحلا يدانا ديلمان بل ديلمان سببها أي كتمي يسيدو كل حين لقاعد برسيبه أنت بنا الوذا ولا شيء نشهد ديلم دوحن عريي وقت سأفق معهن كوبي لا تكيب العريي علمت وحي كتمي قصة اللي لسه وذاقي قصة ده اللي لسه وذاقي إن أنبا وحي شالي ويل كيبا واحد عاي دوف بلود ودي garoobe ayuu qabtay markii dambe waasabaru doontay garoobe markuu qabtay wiilkii waxa dhacday in wiilkii jidkii gaariga kula dhaco jidkii markuu kula dhacay wiilkii uu dhintay inantii sidii bay qisadii ugu soo wadaagtay dheelmad kale magac ku jira waa qof adduunka ka dheelmaday ma sida magaceeda waxaana ka sheekaynaysaa xaaladda ay ku sugantay inantii waxay matalaysaa qof ifkii ku sugan laakiin haddana iska jooga laakiin aan dareen wax dareen qalbigiisii u raacay marka iyada inta ka badan isturjubi doontaa marka wata waa tahay amdi kala baxo abwaan idinkii daawadayaasha iyo maansada dheelmad waxay ku bilaabmaysaa ifkani dhalandhool badna qoraalku dhantaalana dhawaaquna kala xuma adduunka waxaa qof dhaqan intay dhaayuhu qabteen midkaan dhabu caashaqow maalintaad iga dhaadhacdaan nolosha dhadhankeedii nahay cuntada ma dhadhamin sidii hurdada dhinacu ma dhigin xasuusii may dhammaan adduunka inagu dhex maray habeen ilinkama dhammaan dhaayii ku ooyi jiray dantay kuma dhaadhacee dalluuntii lagu dhigaan dhambaada ka soo qora bartii aad ka dhaadhacdiyo xabaashaadan dhiga xogtan soo dhiibayee waraaqaha aan ku dhigay inay kuu soo dhacaan dhabtii weli maan ogaan dharaar kasta oon tukado dibnaa duca kama dhammaan naftana samirkii ka dheer intaan soo dhaadhacayo cidladan dhacdiidaya markaan kuu soo dhintee dartaa iil lay dhex dhigo aakhire igu soo dhawee jannada ii sii dhig gogol dabeed dhiin igu casun habeen badhanii kaxee adoon xuural caynba dhugan xabiibid dartay u dhaaf xubbiga dhaar baan ku maray inaan keli kugu dhammaysto nafloo idil kaa dhawaysto laf iyo dhuuxeed ahaan qalbiga sawir baa dhex yaal quluubta adaa dhigoo qof baan dhilidsiin karayn dheeldheel kugu saari kara arliga markii aad ka dhooftay dhabtii aniguna ku waayey cidlada kala dheerideenna dadkii waan wada dhibsaday haddana waxa aan dhabaystay amarka alle iyo dhigaalka inaan ruux dhaafi karin waxaan dhaadoo ku baaqday rabbigii dhoobadeena seesay qur-aanka inuu ku dhigay qudhiisa qofkii ku dheela cadaabta inuu dhex geeyo axay kala dheerina dhulka qeyroon lahaaye ahayay kaa dhaweeya macanyay kaa duldhiga intaan noolahay dhibkayga ileen waad dhaadaysaaye u sii samir dhimashadayda bulshada kama dhaadhacayso qof baa dhintay aan jeclaa cid baan i dhabaysanayn dartaa dhaawacan u ahay dadkani igu dhaga adka ifkani igu dhaxan badnaa jacaylkani dhalan rogow hadmaad ka dhammaanaysaa hubbigan dhafarkuu ku jira humaagu dhab ma wada noqdee nafluu rajaduu dhaqdaa dhamaystaa aadamuhu
riyada igu soo dhacday hadmaad ii dhagoobaysaa dhaaxaan faraxnaa weliye hadmaad dhalanteed ka bixi asxaab igu dhaadataay marba ay dhaliilaysaan marba ay dhantaalaysaan anoo dhalanteed la jooga dhabtii iga maadsataan haddana waa ay dheerisaan maansadu yay ila dhacmine waxaan ku afjaray dhabtii adduun ruux laga dhintow dhibtiyo hawshaad qabtaan cid kale kula dhaadi kara waa tahay daawadayaal in badan maansada waa wada dhugateen waxaan rajaynayaa in ilaahay qalbiyadiina dhayo waayadan dambe waxaad moodaa dhalinyarta inay jacaylka fahanto waa wada macaashaq meedhan